mahadsantihiin asaatida mar kale waa in kusoo dhaweynaa panelka aan maanta uga doodi doono arrimaha la xiriira bangiyada ajnabiga ah fursadaha iyo caqabadaha ay leeyihiin waxaan toos u gelaynaa marka dooda insha Allah taala waxaan kusoo dhaweynaa microfonka mudane Maxamed Duwo agaasimaha hay'adda horumarinta maalgashiga wadanka Som Invest agaasima soo dhawaad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارة دمانتين وايد السلامي منصب كينا يو معموس كات كفر لسانة إذا كسلامي وكفر أحسن هاي إن SBA أو شنتي سنة اللي صار في كشقين يسي بنجية ذا كوميرشال كاسدي لسوق دولها سيدي لو دفاع لها سيدي سوق ذا لو بلارين لها سيدي intii bangi walba uu dadaal badan iyo lacag badan uu ku bixi lahaa inuu hawlihiisa u istaago in dalad muhiima oo weyn oo dawladana lagu la macaamilo iyagana isku la macaamilaan adduunkana isku la macaamilaan hay'adaas waa associationkaas waa ku faraxsanahay runtiina qabiilka casriga ah oo hadda socda waxa waaye intii isku dan ah isku ganacsi ah inay association yeeshaan contributionka qabiilka la sii jiray ay leeyihiin danihii lagu difaaci jiray qabiilka mid lamid ah inay leeyihiin waa ku faraxsanahay waxaan kaloo ku faraxsanahay in maantay doodii ugu horeysay ay qabanayaan waxaan filayaa inaysan doodii ugu dambaysan noqon doonin ama ay noqon doonto midii ugu horeysay waxaan salaamayaa akhyaarta meesha ila fadhisa professor Yaxya Caamir iyo Cabdirasaaq CEO-ga MyBank kulley markaan gadaal u fiiriyo 10 sano oo la soo dhaafay bangiyada Soomaaliya sida ay ahaayeen maanta ma aha 10 sano soo socotana sida maanta ay yihiin ma noqon doonaan sida xaqiiqada ah bangiyada iyo bulshada haday noqon lahayd ganacsatada iyo dadka shaqeeyaba waxa moodaa inay kala yara duruqsan yihiin inta bangiyada isticmaasho inay yihiin inta jeebweynta ah inta bangiyada aanan isticmaalin inay yihiin dadkii hoose iyo dadkii dhexe study ahaan inta bangi lacag dhigato iyo inta aanan dhigan ma haystaan ama aysan haysanin waxa badan inta aanan dhigan bangiyada shaqo badan oo waxa u taala inay isbalaariyaan inay adeegyadaas baahiyaan inay ku tartamaan dariiqyo kala duwan inta ay bangiyadu gibigood hal dariiq ama hal market ama hal focus ay ahaan lahaayeen bangiyada 10 sano intooda badan ay jiraan waa dareemi kartaan weli waxay ku jiraan stage-kii barashada iyo stage-kii isdhiska oo hay'ad ahaan ay isku dhisi lahaayeen bangiyada waxaan filayaa inay yar yihiin inta ISO certification haysato oo adduunka maanta hadii la yiraahdo bangi hebel ISO certified way macnaheedu ay tahay maamul ahaan iyo dhaqaale ahaan maaliyad ahaan inuu yahay international standard macaamilkiisa iyo sida loo maareeyo marka wax badanna waa naga dhiman yihiin meesha aan soo gaarnay 10 sano gudaheedna wadamo badan oo Afrikaan maysan waxay ku qaadatay sanado aad u badan marka warka waa xidhan waa cadcadeysanaynaa aniga intaas un baan ku furi lahaa waana mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu insha Allah taala Cabdirasaaq Maxamed Axmed CEO one of our banks Cabdirasaaq waxaan leeyahay soo dhawaaw. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتا دمانتين وعد السلامي SBA نو خاصنت هاي كلان كان إني سوء بابلان أنا واحد علىها أنا وحير هردع أن كسميو بنجيدا إن صوماليات sida ustaad Dhuubo uu sheegay bangiyada Soomaaliyeed runtii sida maanta ay 10 sano ka hor ma ahayn mana la filaayo inay sidan sii ahaan doonaan 10 sano kadib laakiin waxaan rabaa inaan wax yar xasuusiyo meesha ay soo bilaabatay before that-na waxaan jeclahay inaan horta ka bilaabo bangiga ama bangi muxuu qabtaa oo basic ah shaqada basic-ga ee ugu muhiimsan ee bangiga uu qabtaa waxa weeyaan in surplus unit-ka economy-gana ay wax dhigtaan deficit units-ka oo economy-gana ay markaas ay maalgeliyaan oo macnaha dadka lacag dhigan karana deposit samayn karana ay deposit ka qabtaan
kuwa maalgelinta u baahanna ay ku maalgeliyaan. That is the basic job of any bank. waxyaalaha kaleeto waa iska wax qurxin ah waaye, laakiin shaqada asaasiga ee bank kasta uu qabtaa taas waaye. bangiyada Soomaaliya waxay soo mareen marxalado kala duwan. Ani ma rabo inaan ka hadlo xilligii dawladdii hore iyo bangiyada si ahaayeen. maxaa jira anigu waa yarahay, macnaha da'dayda aad u yar tahay, marka waxaan ka bilaabayaa inta aan da'dayda la eg tahay. anaga waxaan soo martay iyadoo bangiyada iyo financial institutionska kale xawaalado marka ay ka jireen ay shaqaysanayaan, iyadoo bangi dhexena aanu jirin oo regulation jirin oo waxba jirin. marxalad kale waxaa la soo maray inay bangiga dhexe naftiisii ay hay-adihii maaliyadda ee waddanku dhiseen. arrintaas waxaa laga yaabaa dad badan inaysan ogeyn. bangiga dhexe burburkii ka bacdi waxaa dib u dhisay oo dib u soo nooleeyey, yani dhisme ahaantiisaan ka hadlayaa, qaar ka mid ah hay-adaha maaliyadda waddanka ayaa dib u soo dhiseen. ka bacdi markaas waxaa ka soo bilowday halkaas safar oo sharciyeyn bangiyadii, licensing, supervision iyo waxaas oo dhan ah. hadda 13 bangiyada waddanka local bankska ay yihiin. waxay ku midaysan yihiin ururka bangiyada Soomaaliyeed, Somali Bankers Association, oo maanta inoo qabanayaan forumkan. waxaan iskula xiranahay dhammaanteen National Payment System ama hab lacag bixinta qaranka oo central bankiga uu u yahay xudun, oo bangiyada dhanna ay lacag iskugu diraan. waxaan u malaynayaa inay quman tahay in la sheego in National Payment Systemka hal sano haddana soo dhaaftay lacagaha bangiyada ay iskugu direen ay gaartay $1 bilyan hal sano. 1 bilyan inay gaartay oo taa meesha ay ka sii saarayso dadka inay lacag qaadaan oo cash maaragtay lala socdo dariiqyada. waxaa socda Somali Payment Switch oo isaguna ah project kale oo bangiyada oo commercial bankska iyo bangiga dhexe isla leeyihiin, oo isaguna switch garayn doona transactionada localka ah in si sahlan wax la isu dhaafsado, oo interoperability-ga iyo wax isu gudbinta bangiyada dhexdooda ay sahal noqoto. commercial bankska waddanka waxaa maamula financial institutions law-ga oo 2012 la sameeyey, haddana revision ku jira, iyo number of regulations iyo prudential guidelines uu soo saaray maaragtay bangiga dhexe waddanka. total assetska baananka waddanka as of maxaa la yidhahdaa quarter 3 I think labadaas midkood oo 2021 wuxuu ahaa wax ku dhow $1 bilyan. anaa assetska all 13 banks marka la isku daro, yani assetska ay sameeyeen wuxuu ahaa quarter 2 or quarter 3 2021, yani wax yar waxaa ka dhimanaa $1 bilyan. intaas waxaan jeclahay inaan ku ekeeyo sawir yar ka bixinaysa bangiyada tiradooda iyo si iskugu xiran yihiin, si ay wada shaqeeyaan, iyo ururka bangiyada iyo meeshii laga soo bilaabay iyo hadda halka aynu joogno. waa mahadsantihiin. Professor Yaxya Caamir. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلامي كسوق قلياشة عن كلام وها بلينا اسكتك بقيدة Soomaaliyeed oo intii hal ay wax u raadi lahaayeen iyagoo midaysan inay waxooda raadsadaan. waxaa hadalkayga u badin doonaa macdamaa laga hadlaayo bangiyada ajaanibta ee waddanka imaanaya waxay aan goobjoog u ahay waa lay sheegay iyo meelaan ka akriyay meelaan dhigaa marka xoogaa haddaan ku dheeraado. horta waddankan waxaa ka jiri jiray kacaanka ka hor bangiya ajnabiya. Masar waa ku jirtay bangi Egypto, bangi Napoli, bangi Roma, saddexdaas xamar ay ku yihiin iyo bangi kale oo Ingiriis. afartaas bangi branches ay ku lahaayeen Soomaaliya. kacaanka markuu yimidna kuwa ajnabiga iska dhaaf kuwa waxay dhama la qarameeyay. burburkii kadib marka waxaa dib loo soo nooleeyey bangiga dhexe
waxaan ka mid ahay boorkii ugu horreeyey ee bangiga dhexe wax ka sameeya hargaha iyo saamaha deganayn waqtigii dowladda cabdullaahi yuusuf ay ahayd dowladda keliya ii yeereetaba iyaday ahayd 3 shaqo ii dirsatay mar la taliyaha xafiiska ra-iisul wasaarahan ahay dhinaca dhaqaalaha laakiin UNDP da codsadeen UNDP ay soo dirtay marna guddiga ugu horreeyo dhaqaalaha markay dhacayeen ay sameeyeen ahayd marka la board of central bank bangiga dhexe soo jirin hargaha saamaha ku bilaabno adiga waa horuu marinay waxaan u guurnay xaruntii silsiladan weyn oo silsila weyna leeyahay waxay la billaqaystay gashay Mombasa ka soo gadnaan soo celinay iyada lafteeda meesha ma aalin bangiga dhexe marka kuwaan hadda labadan banki ee Masar iyo Turkiga ka socdaan leeyahay miyaa ugu horreeyay maya bangi la yiraahdo Chase Bank waxaan goobjoog ahay inaan ka hadlaa fiican oo Kenya ku yaala wuxuu yiri waxaan naqanaa bangiga ugu horreeyay ee ajnabiga ee Soomaaliya ka furto xafiis xarun banki waa soo dhaweynay waa la darsiyay أنا شكي أقول هذا بقى أنا صوب صدق أنا بأكون كلها والراديني حيصوب هذا بقى إنه عضير فلامين تذكرسون فلامين تحليله إنه كعي إنه كم مرسمونا مركز Soomaaliya intaas soo hantiya geliyay waana igu gubatay boardka oo imiday waxaan warnamay bangi kasta ugu orod galee kan cabsi ay iga muuqato ma iska dhaafaa la yiri haddana waa tagay Nairobi ugu arkeen in been la sheego ma fiican aakhir waa la warsanaa waqti dadka qaar ay yaqaan hotelkan weyn oo Lyco Regency ay ugu yimideen waxay keeneen $7,000 daaga aaminaysiin hotelkan ku geynayna lacagtaas haddaan naqato in baasha nala sii rabnaa ninkii ila jooga ka qaado ana waxaan ka qaado maayo ina iyaga khayaano ama ganacsatada Soomaaliya ina khayaano labada mid naqanay lacag ma haystaa waxa u diiday 4,000 haystaa cawada inta 4 waa laga dhaxlaa waa soo naqday inta imiday guddiga u sheegay markii oo Bashiir Ciise joogay cod dadku iska celi jiray cod laga qaaday meesha dimuqraasiga jirto boorka codeyna hal siyaa la yiri warqada igu dhiibaanay horta markaas koore waxay yireen arday aan ku tababaramaysata inta rasuulada faham waay waxa ay afar arday ma ayaan laba wiil laba gabdhood oo maleena ay qaadeen Nairobi geeyeen kharashkiga ka bixinay bangiga ka shaqeynay mushaari siinay shahaado soo siiyeen arday qaar inta ku arkay wala dubi aada wala magacooda iska wajigooda xataa ma xasuusta arday aan ku qoray inta fadhiyana xataa suurooda markii dambe shahaadada ana u qaaday airportka igu soo dhaweeyay waa iga hor yimideen aad ii soo dhaweeyeen waxaan markaa naqanaysiin shaqo intaad bilaabeen waa israacaynaa markaas waxaan u dalayahay shuruucda lagu la heshiinayo bangigan ajnabiga inayna noqon mid dhibayso bangiyada gudaha macal gudoomiye waa laga soo dhuuntay diyaarada la soo raacay oo Nairobi joog inta yimideen waxooday badbadoobeysan maalin kadib ay yimideen warqada ka daba qoray inay iga dhuunteen inay nimanka khayaano wadaan xarunta bangiga laga wacay ay ku leeyihiin meel hotelkii Westgate meesha suuqa la gubaayay dhinaca waa dar xaruntooda ugu weyn ninka ugu sareeya yimiday Elmis iyo Kennedy degiin wuxuu shaqada rabnaa inaan bilowno kan waay waa iga tagay xisaabaadka wallahi been ma sheegay haddaan sheego hadhow anoo tabar lahayn carabkayga ugu markhaati ka caawo asoo baqshad lacag ku jirto wado ii keen ma raba in lacagtaan waa xanaaqi ana waa kasoo tagay taxiga kasoo raacay maxaan diidayaa marka waxaan hadda xamar tago ganacsatada dhama shuru qabana waxaan u sheegaa bangigaaga inuu ka rabo oo marmarsima aad raadinaysid lacagta lagu dhigto dhan inay dhumi doonto intaas aan geeynahay inaan Soomaaliya daacad ka ahayn inaad tamaadiina waa ogaa adiga waa soo naqday inta imiday guddiga la shiray sida uu sheegay oo boorka ilaahay ma hadoo aragtay bangiga waa kacay dawladda la wareegtay inta imaanba ninkii kale iska aaday wixii lacag u tiil waa ku khasaareen hantidiisa la xaraashay waxa la gudi karaa la guday sheekadaas ana waay arag waahay waxaan soo qaadanay waxa kamid ah bangiga dhexe iyo bangiyada Soomaalida inay iska hubiyaan ma labada bangi oo kaliya bangi kasta ee soo codsada inuu Soomaaliya branch ka furto muxuu uga dan leeyahay
xaaladiisa dhaqaale meeshuu maraayo ma bangi oo dadka iskale xataa bangigaas qof in loo darsiiyo marka waxa dhumaayo hadhow hantidaadi waa in laga fikira marka sequencega ka imaan karo oo waddankaaga u keenayo taas oo waxay ahayd inaan idin sheego waxa waaye arag aan u ahay bangiga marka hadda haddii bangi dhexe oo bangi ajnabi uu imaanayo waddanka maxaa loo baahan yahay bangiga dhexe ani hadda boorkiisa ma ihi waxaa waajib ku ah kow inuu u yeero inuu horta dad soo baara u diro hadduu arkay inuuna anfacayn waddankan ama backgroundkiisa uu helo inuu iska dhaafo haddii uu la fiicnaado inuu ganacsatada u yeero marka ama bangiyada inuu u waco gudaha joogo oo idhaha bangigaas wuxuu rabaa soomaaliya inuu ka furto branch faa'iida yeelan karaan dhibna waa yeelan karaan kow in lagu xisaabtamo marka shaqadiisa in saddex loo qaybiyo bangigaas ajnabiga imaanaya shaqo oo u go-an bangiyada soomaaliya ku yaal oona asigu farageli karin limidkooda dhaqaale ha noqoto marka haddii meel kasta asiga loo fasaxo waxaa laga yaaba inuu ka dhaqaalo badiya ka waaya aragsan yahay soomaalina sambaatiyana isaga hayaan bangi ajnabiga waddanka yimid inay asiga ku dudaan marka meelaha la maalgashanayo shaqooyinka qaar in loo dhaafo local banks qaybta kale oo dhexda ah meel ay ku tartami karaan marka tartankaas oo labaduba ay ka qaybgeli karaan waxay keenaya quality-ga shaygaas inuu fiicnaado haddii lagu tartamayo marka nin walba wuxuu isleeyahay adigu fiicno shaqada service-ka qabanaysa ka fiicnaada kan kale raqiisna waa imaanaya haddii lagu tartamo iyo qayb asiga u gaara oo ah xiriirka bangigiisa xagga jiray oo weynaay iyo baraajiga taasi u gooni tahay laakiin saddexdaas in loo qaybiyo shaqada ay qabanayaan labada banki tan ugu dambayso bangigan markaa u ogolaatay inuu baraaji inta ka furto dowladda waxbay isdhaafsadaan asaguna waa inuu ogolaado in bangiyadan mid kamida uu ka fura karo waddankiisa ma asiga keliya inuu inta baraaji ku leeyahay marka promotion inay kuwayguna helaan inay xagga ka fura karaan saacaddaa gaabata umale inaa iga raali ahaado professor yaxya aad iyo aada u mahadsan yahay iyo qisada uu nala wadaagay intaba mar dhow waan idinku soo wareeji doonaa insha allah laakiin wareeg labaadaan waxaan u celinaynaa panelka u celinaynaa ustaad maxamed duugow meelo badan aa ka taabatay arrimihii maalgashiga iyo maalgashiga ajnabiga tooska ah bangiyadan hadda yimidna fursadaha iyo caqabadaha panelku wax badan oo ka taataabtay marka hadda mis leedahay waa waqtigii saxda ahaa foreign direct investment toos waddanka loo wada gelin lahay mise waqtigaa dhiman waa la soo daayay hadda bangiyadan haddana morondamkii waa la saaray moratoriumkii oo xayiraadii laysanka waa la saaray laakiin waxaa maqaal kale ah in other sectors energy ku jiro telecommunication ama other sectors dad badan ee daneynayaan soomaaliya inay soo galaan marka is it the right time in dhammaan wax kasta la soo wada daayo soo dhawow waa mahadsantaha cibaar horta waddan in la maalgashto waqti oo time oo ku fiican yahay waqti oo ku xun yahay ma jirto waddan walba marxaladda uu joogo investment u dhiganto ama u qalanta ayuu soo jiitaa wadamada colaadaha ay ragaadiyeen sida Congo kale Libya hadda kusoo biirtay Yemen annagu hadda waaba kasii baxaynaaye investmentiga ay soo jiitaan waa laba qaybood waaba security-ga laftirkeeda in la invest garaysto baa ugu badan baqshada ugu badan ah waxaa kaloo ugu badan in waddanka asoon la tegin in la maalgashto oo shirkadda iyadoo gurigeeda joogto inay shirkad waddankii ka shaqeysa ay control stake intay ka iibsato technology iyo aqoontii si remote ay u support garayso lacagna ay ka samayso waa qolada cabsanayso waxaa la yidhahdaa brown investments brownfield investments marka Soomaaliya waxaan isleeyahay waqti badan baaladan dadka lagu baaray iyo iskaanarada la maray iyo eeyaha wax carcarfiye iyo nin waxa jooga xalanad degan oo company dhowr eey leh oo dan noo diiwaan gashan oo maalgashada ah oo eeyaha qaraxa uriya uu keensaday waa maalgashada ajnabi oo serious hadda noo jooga annaga marka waxyaabahaas waxay daliil u yihiin inaan securitization-ka oo investmentiga inuu nagu badan yahay laakiin waa majaalan isleeyahay waa ka bixi doontaan
caqabadaha la sheegay aniga waxaan jeclaa inaan opportunities inta badan ka hadlo. Challengesku haddana waa badan yihiin, mustaqbalkana waa sii badanayaan. kuwa hadda yaallo inaan indhaha ku fiirino waxaa igala quman kuwa soo socda laftirkooda sidii loo saadaalin lahaa in laga howlgalo. talo weyn waxaan siinaa SPA Africa ama dunida saddexaad associationadeeda inta badan waxaa loo aasaasaa in la isku difaaco, laakiin looma aasaasa in lagu hormariyo danaha memberska ama dadka ka tirsan. waxaan isleeyahay horta inaad soo hormarisaan protectionka intaad dib u dhigataan, bal sidii suuqiina u horumarsan lahaydeen laftirkeeda baa waxay idin ka baahan tahay advocacy badan. shuruucda uu ka hadlay professorka waxaa laga yaabaa wasaaradda maaliyadda iyo bankiga dhexe inay isleedihiin waa labada meelood oo u muhiimsan oo aad kala macaamishaan dowladdan, laakiin wasaaradda arrimaha dibadda waaxdeeda sharciyada oo sharci kasta uu soo maro oo dibadda nooga yimaado xiriir ma la leedihiin. garyaqaanka guud xiriir ma la leedihiin oo qofka ugu dambeeyo u gudbinayo golaha wasiirada sharciyada la qoray inuu yahay. in aad advocacy u sameysaan shuruucda la marinayo waddanka ma aha kaliya kuwa financega quseeya. waxaa laga yaabaa sharciga migrationka inuu ku jiro qodob caqabad ku ah inuu financial systemka waddanka uu hana qaado. marka in si picturekaas guud loo akhriyo. challengeska aniga labaan u kala saari lahaa. mid waa wax structural ah oo dowladda iyo sharciyadeeda iyo siyaasadaheeda iyo ku xiran, waa midka ugu sahlan oo mar walba la xallin karo. haddii pressure uu ka yimaado SPA iyo bangiyadii iyo insuransigii iyo financial sectorkii haddii dowladda u yeeraan ay yiraahdeen A iyo B iyo C baa naga qaldan noo saxa, waxay u badan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan in loo soco ay tahayba in loo soco. laakiin waxyaabaha ugu adagoon la sixi karin waa market challengeska oo inta badan hadda walaalkii Cabdirasaaq uu ka hadlayay. qof lacag badan iyo qof lacag yar inay tartamaan dowladda waxba kama qaban karto. waa laga yaabaa inay meelaha qaarkood jalaafooyin u dhigto kan weyn, laakiin haddii marketkaas lagu tartamayo waa market xura una baahan in si open loo dhiirigeliyo. dowladdu aniga waxaan idhaahdaa inta badan waa tabar yar tahay laakiin ma awood yara. waa tabar daran tahay. maanta waxaa laga yaabaa indhaheeda iyo capacity-geeda iyo waddanka inta ay ka joogta iyo inay yar tahay, laakiin bangi weyn oo bangiyadii laaynayo inay ka celiso waa awoodaa. instrumentiga ugu celinaysana adduunku waa iska waa kooban tahay. qodobo la isku cugsadaa jiro oo walaalkii uu ka hadlay. sharci walbana wuxuu leeyahay gray area, laakiin waxaaba ka horeysaba maalgashigu haddii uu dhibaayo ama uu taabanayo amniga qaranka waa shaati weyn oo dowladuhu ay isticmaalaan inay bangiyada waaweyn ama investorska waaweyn kaga celiyaan kuwa yaryar, especially haddii kuwa yaryar ay xaqiijiyaan in competitionkaas uu yahay unfair. shuruudaha lagu xaqiijinayo iyo hay-addii xaqiijin lahayd oo competition authority oo la dhisay iyo shaqo badan oo kale naga rabtaa. laakiin dowlad private sectorkeeda usoo cawday oo yiraahdeen qofkaasaa na dilayo ama marketkii fasaadinayo, dowladdu waa u sahlan tahay inay ka celiso. shaatiyada ay u gashatana midna waa national security, midna waa investmentigaas inay caqabad ku tahay bay-ada iyo cimilada oo hadda qodob casri oo soo baxay uu yahay. waxaa ku jiro in diinta iyo dhaqanka iyo haddii ay taabanayso iyo wixii soo jireenka ah in investmentiga lagala laaban karo, lana raacday karo, lana xiri karo. marka dowladdu ma wayso sidii ay u difaacin lahayd local ama private investorskeeda, laakiin waxa ay waysaa inta badan private sector cabashadii iyo xalkii iskula keena. taa waa qodobka aan rabo inaan kusoo ganaanido. maalgashiga aniga aan isleeyahay hadda dunida 50 sano soo socota waa 3 qaybood. waxyaabahan environmentiga climate change-ga la yiraahdo oo hadda investmentiga adduunka oo dhan ba dhinac u qaadatay oo lacagaha ugu badan hadda la gelinayo billions of dollars ay ku socdaan. waa jeclaan lahaa bangiyada Soomaaliyeed inay waxyaabaha growth-ka adduunka ku xiran inay laftirkooda iyagu isku sii align gareeyaan. in trade la finance gareeyo, container la soo dejiyo wax sustainable maaha, laakiin waxa sustainable ka waxay tahay cimiladan in la maalgashto oo energy-gi iyo renewable energy-gi iyo blue economy iyo wax badan ay soo hoos galaan. labo in la maalgashto technology-ga. inta badan analogy waxaan isticmaalaa qof tuulo taajir u ahaa oo la eedi jiro la dhihi jiro aabbaha kaaga dhintay xoolahan baa abaar intii timid xoolihii dhan baabi'is. abaartii marka laga soo laabto azuumay dadkii tuulada deganaa oo ku yiri shalay ay eedi jirteene maantay gebigan waxa ma haysano. waa ninkii taajirnimada ku hormaraa
dhowr bilood kadib waxaa la arkay ninkii haddana taajiro xoolihii u buuxaan oo qoladii kalena ay faqrigii weli ku jiraan marka maadaama bangiyadani boqolaal sano ay jireen waxaa xaqiiqa ah teknolojiyada hadda adduunka uu isticmaalayo oo bankinka loo isticmaalayo inay jirta muddo ka yar 30 sano wadamo badan baa waxay qaadanayaan digital banking oo bangi xarun leh oo loo tago oo laga adeegto uu sii yaraanayo anu marka waxaan qabaa dagaal waa tabar maahine bangiyadu ha isku diyaariyaan inay teknolojiyadana maal gashtaan waxaa laga yaabaa bangi 200 oo sano jira oo la tartamayo inay dharaar cad ay kaga adkaadaan competitionka qodobka saddexaad oo maalgashiga adduunka ugu weyn waxa waa SMEs in la maalgashto growth-ka ama kobaca dhaqaaluhu mar walba wuxuu ku jiraa inta kortay maahan inta korayso ku jiraa marka dhaqaalaha hoose oo liita iyo mid ka dhaxe in maalgashigiisa la xoojiyo oo bangiyadu ay u soo jeestaan weeye hadalkaas mar walba waxaan ku adkeynaa labada qodob oo dagaal ama lagdan waa tabar maalin weyn oo waxa arkaysaa wiil yar lagdanayo dawladina waa tabar daran tahay ma awood yara hada uma santiin